in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho warkii shirka waa la furay gudoomiyaha inoo furay kelmadii wacdiga ahaydna waa qaadanay marka insha Allah waxaan inoo akhriyayaa warmurtiyeedkii gudiga ay ka tashiga dhulbahante iyo fiqshini ee gobolka Sool ujeedada warmurtiyeed waxa shir iskugu yimid qaybo ka mid ah simada uqaasha culimada diinka aqoonyahanka dhalinyarada iyo dhamaan qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo reer fiqshini taariikhdu markay 6 bisha ilaa 8 bisha shirkaas oo laga tashanayay aayaha xasiloonida badqabka iyo jiritaanka ummadda SSC gudigu markii yeelatay kulamadoodii ugu horeeyay qiimeysana xaaladda wadanka ayna aragtay kacdoonka shacabka dal iyo dibadba markay aragtay fashilka amniga gobolka ee ka yimid muddadii Soomaaliland gacanta ku haysay maamulka gobolka markay aragtay dilalka joogtada ah ee xal aan loo haynin markay aragtay tacaadiyada iyo xoogga dheeraadka ah ee istabajooga loo adeegsaday dadka shacabka ah markay aragtay go'doominta iyo ihsaarka ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee ku hareeraysan magaalada Laascaanood markay aragtay diidmada shacabka ee maamulka Soomaaliland markay aragtay quwadaha iyo ciidamada u dhashay gobolka ee ku soo wajahan magaalada Laascaanood markay aragtay qaxa iyo barakaca sida xawliga uga socda magaalada waxay go'aamiyeen lambar 1 gudigu waxay u tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay tacaadiyadii ka dhacay magaalada kuwii ku dhaawacmay Ilaahay waxay uga baryayaan caafimaad iyo badqab lambar 2 waxay gudigu cadeynaysaa in wixii khasaare ka dhacay magaalada naf iyo maalba uu mas'uul ka yahay maamulka Soomaaliland lambar 3 in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho Allahu Akbar lambar 4 waxay raali ahaada lambar 4 in dhulbahante iyo fiqshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo lambar 4 weeye in dhulbahante iyo fiqshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo maamulka gobolka lagu wareejiyo ciidamada iyo mas'uuliyiinta dhulbahante iyo reer fiqshini si ku meel gaara lambar 6 inay shir isugu yimaadaan isimada uqaasha culimada siyaasiyiinta aqoonyahanka ganacsatada qurba joogta iyo qaybaha bulshada ee dhulbahante iyo fiqshini si looga tashado masiirka iyo aayaka tashiga iyo mustaqbalka ummadan lambar 7 inay ciidamada banaanka jooga ee dhulbahante ku sugnaadaan goobahooda kana warsugaan talada dhulbahante iyo reer fiqshini wax galalaasana aysan geysanin lambar 8 in magaalada laga ilaaliyo dagaal ka dhaca loona turo dadka shacabka iyo bulshada ku nool lambar 9 in dadka shacabka ay isdejiyaan qaxana joojiyaan kana warsugaan shirweynaha dhulbahante iyo fiqshini lambar 10 in shacabku ilaaliyaan hantida ummadda mid guud iyo mid gaarba dhamaanteed lambar 11 gudigu waxay ka digayaan cid kasta oo faragelin iyo xagal daacin ku haysa talada dhulbahante iyo fiqshini lambar 12 gudigu waxay u mahad celinayaan garaajama garaad Ismaaciil oo qaban qaabiyay shirkan qayb lixaadna ka qaatay xaaladda gobolka dhamaad waana mahadsantahay billahi tawfiiq 12 ka qodobay